بسم الله الرحمن الرحيم وولالكن سعيد إيرك وجوجا magaalada Dubai wadanka Imaaraadka Carabta waxaan rabaa inaan duubo maanta cashar ku saabsan sida dhaqaalaha loo abuuro afqalaadna lagu dhaho how to create wealth marka dhaqaalaha sida loo abuuro waxa weeye waa technique maaragtay ama xeelad jirta weeye haddii la fahmo oo maaragtay siday tahay loo raacana waxa weeye guul in laga gaaro ayay u dhowdahay marka waxaa jira waxa la yidhaahdo maaragtay shaqo adiga aad qabato oo hal mar aad qabanayso oo mar kastaba lacag lagaa siinayo iyo waxay kala tahay shaqo ad marka haddaadan qaban ay waxba kuu suuroobaynin hadda shaqada caadiga ah oo kale haddaada maalin kasta soo shaqa tegay bisha mushaharka laguma siinayo markaa mushaar laguma siinayo laakiinse matalan haddii aad buug qorto buugga markaad qoraysa hawl buu u baahan yahay waqti buu kaa qaadanayaa laakiinse buuggu markuu dhammaado oo lasoo daabaco waxa weye buuggii baad iska iibsanaysaa mar kastoo maaragtay madbacad cusub lasoo daabacaba lacag ayaad maaragtay helaysaa ma garata marka waxa weye shaqa qoristii buugga hal mar bay dhacday laakiinse dakhligii waxa weye joogto weeye ma garata mar kastoo maaragtay daabacad cusub la keenaba lacag baa lagu siinayaa qaabkaas ayaa ka mida sida dhaqaalaha lagu sameeyo waxaa kaloo ka mida matalan inaad urursato maaragtay waxaan loo yaqaano nowadays ama adduunyada haysta cryptocurrency sida bitcoin iyo ethereum iyo inaad maaragtay urursato bitcoinka oo kale waxay bilaabatay markii ugu horreysay 2009 ayay bilaabatay waxay ku bilaabatay 10 senti oo Maraykan ayay ku bilaabatay kayn haddana wuxuu marayaa haddaynu maanta gallo systemka accountka aan fiirino wuxuu marayaa maanta aan eegno bitcoinka accountka marka la gelayo waa securitygiisu aad buu u sarreeyaa wuxuu ii diray inaan maaragtay gmailkii aan ku abuuray aan kasoo verify gareeyo bitcoin accountka inaan galaan rabaa waa kan authorize attempt waa kan marka waxaan leeyahay aniga weeye wakaas halkaanaan tegayaa marka hadduu ii furmayaa marka maanta xabadda halka bitcoin meequu joogaa halka bitcoin maanta imisuu joogaa wuxuu joogaa 32,619.05 2009kiina muxuu joogay 10 senti buu joogay markaas 10 senti ayuu joogay marka 2009kii ninkii $100 bitcoin gashan lahaa wuxuu heli lahaa $100 waxaad u qaybisaa 0.1 kun xabo ayuu heli lahaa kun xabo oo bitcoin ah maanta waa gadana hadduu dhihi lahaa ka waran 32,619.05 $32,619,000 oo dollar ayay boqolkii dollar maanta u noqon lahayd 32 milyan u fiirso 32,619,000 dollar ayay u noqon lahayd boqolkii dollar waa 11 sano hadduu hayn lahaa annaga samirkaa maynagu jiraa marka samirkaas ma helaynaa 11 ha hayne ma hayn kartaa bil hadda halkaan oo kale tusaalaha hadda bishii hadda ina dhaaftay meeqay maraysay waxay maraysay 24 December 23,300 bay maraysay okay markaanay ugu sara martay meeqay gaartay waxay ahayd 8 January
41,258 marka 41 iyo 23 maxaa u dhaxeeya 41 minus 23 haddii maalinta aad gadan lahayd 23kii December haddaad gadan lahayd hal bitcoin 8 January waxaad qaadan lahayd $18,000 $18,000 ayaad qaadan lahayd marka waa shardi maaha marka inuu maaragtay macaashkaas helaysid khasaarana waa imaan kara laakiin khasaaraha waxa looga fogaan karayaa hadda halkaan oo kale maalinta ay joogtay 41 haddaad aragtay inay hoos u soo dhacayso qiimuhu soo dhacayo hoos u soo dhacayo waad soo wareejinaysaa waxaad ka soo wareejinaysaa bitcoin baad ka soo wareejinaysaa waxaad u wareejinaysaa US dollar weatherkaanaad dhigaysaa halkaan haddaad soo dhigto mana kordhayso mana nusqaamayso sideeday ku ahaanaysa markii ay magaranaysaa ay 41 ku noqoto isla markaasna aad ogaato kor inay u socoto ayaad bitcoin ku soo celinaysaa ama muddada inta ooli lahayd waxaad ku gadanaysaa coins kale oo maaragtay koraayay oo qiimahoodu koraya sida ethereum wax lamid ah marka insha allahu maaragtay qofkii danaynaya waa ila soo xiriiri kara waa ka caawinaya magaranaysaa fahamkeeda iyo intii aan maaragtay aan ka aqaano marka waxaan idhi buug qofku inuu qoro ayuu lacag ku samayn karaa oo buugga mar walba loo soo daabo inuu cryptocurrency u urursado ayuu ku heli karaa wuxuu kaloo ku heli karaa inuu ka shaqeeyo maaragtay network marketing company inuu ka shaqeeyo network marketing company waxa weeye waa companyga alaab loo gadaayo oo maaragtay macaamiil loo raadinayo macaamiil loo raadinayo marka network marketing companyga waxyaalaha laga helo waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo leverage macnaha waxa weeye member baad noqonaysaa macaamiil baad raadinaysaa macaamiishaad raadisay oo aad keentay macaamiishay keenaan macaamiishay kale sii keenaan macaamiisha kale sii keenaan kulli faa'iido ayaa kaa soo gelaysa adoo hadda waxaad suuraysataa nin baa dukaan soo bartay ninkaas dukaanka markaad soo bartay wuxuu ka gatay waxbaa lagaasi mar kasta oo wax ka gato waxbaa lagaasi kii asagu soo barana mar kasta oo wax ka gato waxbaa lagaasi saasay ku soconaysaa waxay kaloo leedahay maaragtay compounding bay leedahay way badanaysaa tiimkaagi waa badanayaa 2 qof baad qortay labadii 2 qortay 4 bay noqdeen 4tii 2 qoray 8 bay noqdeen 8tii 2 qoray 16 bay noqdeen intaad adigu iska quurinaysid businesskaagi iyo tiimkaagi wuu korayaa waxaad ka heli kartaa wax leedahay residual income lacag joogta ayaad ka helaysaa oo dadka macaamiisha oo keenay lacagtay heleen baa percentage aad ku leedahay adoo bishaas waxba keenin oo dadkaas dadkay keeneen ayaad lacag ku leedahay qaabkaasna waxaa lagu samayn karaa maaragtay weelas baa lagu samayn karaa marka waxaan hayaa maaragtay shirkad la yiraahdo Forsage la dhaho oo network ah oo teamkaas aan maaragtay wax ka waxayn karno shirkadaas waa tan haddaynu fiirino okay Forsage ina geli waa tan any number baad geli kartaa okay okay akoon baan gelayaa qofkii maaragtay markuu hadduu shirkaddan u bogo oo sharaxaadan u bogo ayaan maaragtay qofka si fiican ugu sharaxaya hadda in yar baan iska taabsiinaynaa ma garata in yar baan iska taabsiinaynaa matalan ninkan oo kale wuxuu helay muddo 10 bilooda 4,369,000 ayuu sameeyey ma garata dollar ayuu sameeyey marka waxa shirkaddan waxay ku dhisantahay blockchain bay ku dhisan tahay cid gaar oo xukunta iyo meel laga xukumo iyo qof gaar oo asagu khaas u laho damin kara iyo malaha lacagtu markay kuu soo dhacdo account gaar ah kuugu dhacaysaa oo Ethereum wallet bay kuugu dhacaysaa ala duul halkaasay kuugu dhacaysaa halkaa markay kuugu dhacdo Ethereumka adiga ayaa maaragtay ka adeeganaya marka dadkeeda waxa weeye soo far dadka 1,046,000
658 qof weeye dadkeeda halkaa milyan oo qof walba akoonkiisa waa geli karaa qof walba akoonkiisa waayo qofkan lacagtan hadda ninkan meesha uguma jirto taa waxay ugu dhacday ethereum wallet way ugu dhacday halkaa waxaa la tusay so far how much imsaas shaqaysatay ayaa ma garanaysaa ugu taala ma garata imsaas shaqaysatay ayay u sheegaysaa lacagtan ja waxay ugu dhacday ethereum wallet way ugu dhacday maarta cryptocurrency u noqotay siduu rabu ka yeeli karaa ma garata marka halkaa milyan oo qofkaad doonto waa geli kartaa ka soo qaad hadda waxaan log out baan ninka waa ka baxay ninka lambarkiisu 12 yahay muxuu helay 12 ninka ameequu helay waa kan 500 iyo wuxuu shaqeeyay 63 okay ninka 1001 wuxuu helay waa yahay 1001 ninkaas muxuu helay wuxuu 300 iyo intaas uu helay okay ilaahu beerka ha kugu dhufan ninka 12 kun lambarkiisu yahay wuxuu helay 133 buu helay raggii lacagta badnaa fahmaysaa ninka nambarkiisu yahay 3 muxuu helay ay 895 kun oo dollar maartay helay makaraysa lama yaqaan ninka magaciisa kulli lama yaqaan waa anonymous waa blockchain-ka ayay ku jirtaa ledger-ka ku jirtaa waa transparent cid laga qarinayo wax laga qarinayo ma jirto marka waxa weeye dadku waxaas dhici kartaa sidee loo aamini karaa kamanigaas anigu waxaan ku jiraa 9 bilood buu ku jiraa 9 bilood yaan dhihin 3 bilood oo dhiman 3 November ayaan galay 3 November ayaan galay ma fahmaysaa aad iyo aad baan maartay ugu liibaanay aad baan maartay u jeclaaday dadku marka waxaas dhici karta sidee baa maaragtay ma garanaysaa loo aamini karaa bal nin walba waxaad suuraysataa shirkadda telecommunication-ka magaaladaada ku taala ma la aamini karaa mise lama aamini karo garanaysa ma la aamini karaa mise lama aamini karo akoonkeeda inaad lacag ku ridato ma la aamini karaa waa la aamini karaa tanna sidaas oo kale ay noqdo adduunka haddaad eegto oo kale youtube-kaad gelaysaa youtube-ka gal waxaad ku dhufataa forsage ku dhufo haye imise nin baa ka hadashay imise nin fiiri intaasoo qof aan is ogeyn oo adduunyada oo dhan ku kala nool ayaa sharaxaysa fiiri oo waddan kasta leh oo adduunka meel kasta leh oo qolo kasta leh fahmaysa intaas ma khalad bay isku raacsan yihiin ma shirkad tuuga ay xayeysiinayaan ma shirkad wax dhacaysay xayeysiinayaan intaasoo dhan haddana halkaan kaas waxa weeye forsage keliya x gold meeqa imise qof baa sharaxaysa ملايين أيها شرحيس ملايين أيها شرحيس ملايين أيها شرحيس وفهميس marka waxa weeye sidaas ayay maartay walaalayaal shirkadani maartay u tahay maartay shirkad muhiima oo maartay aan ciyaar ahayn oo magaraysa la qof laga ballan qaaday inaan lagu khasaaray in wax laga waayahay qof loo ballan qaaday ma jirto wax laga helay qof loo ballan qaaday ma jirto inaan lagu khasaaray qof loo ballan qaaday qof walba hiis aw risk ku galaya laakiin intaasoo qof ayaan aragnaa oo dad ay 4 milyan ka sameeyeen markaa 4 milyan 1% haddaad ka heshina oo 4 marka waxa weeye waxaan isku maartay kula dardaarmaya inaan mashruucan ku soo dhaweyno oo aan ka faa'iideysano ma garan in mashaariicdii kale oo aan ka soo hadalay inaan ka wada faa'iideysano oo ma garanaysaa aanu shaqaysano qofku inuu yiraahdo waqti ma hayo firaaqa uma hayo oo wax ka liito waxaan qiimo lahayn wax dakhli u soo saaray oo reerkiisa waxba ugu filay oo maanta oo ku mashquulsan yahay wixii khayr ahaan oo maartay wax lagu qabsanay shaydaan ku diidan yahay arrintaas waa inaan ka hortagno weey waqtigaaga kana ugu qaalisan inaad ka shaqaysato inaad hawshaa ka shaqaysato fursaddaa ka shaqaysato ayaa ugu qaalisan marka videoga waxaan dhigay kanaalkayga Siciid Ereg ayaan dhigayaa youtube-kaad galaysaa halkaan aad ku dhufanaysaa waxaad leedahay Siciid Ereg halkaasaad ku dhufanaysaa saasuu kugu wakaa kanaalkayga halkaas ayaan geynayaa ma fahmaysaa markii aad ka maartay galayso oo kale videoga hadda markaad igala hadlayso oo kale hadda matalan oo kale saa ila hadlayso halkaasaad kanaalka kaas videoga aad igala hadlayso iyada halkaa ku dhufan Siciid Ereg channel saasaad ku soo helaysaa sidaa darteed waxaan idinka codsanayaa walaalayaal inaad maartay subscribe dhahdaan
like dhahdaan ma garanaysaa share dhahdaan kasoo qayb gashaan aad iyo aad ayaan maaragtay idiin salaamaya waana mahadsantihiin ma garata